بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا الشناد حلقتي هروحان جوجني كبرك إنوصن وحبت ترينين إن قصة لقى فهمي كرو قصة وحيك هذا الشيء طبعا وحاك كيف شيدانا كيف شيطانك مركو قرآنك قصة مركو كهدلي سبحانه وتعالى وحو الشيغي مركو سجود اللي يري ملائكتي وملائكتي دن سجودين والنبي آدم معلم وأنغضي ملائكته معلم وأنغضي معلمك أي أرضينا معلمك فضي بدن ومعلمك معلم وأنغضي إبليس سجود يودي دي قرآنك واتن أوليه واستكبر أبا واستكبر ودي دي إنه سجوده وانا maxaa la yiraahdayo waana maxay ahdo kibray kibirka marka waa waxyaalaha uu qaabka daran oo quluubta waxyaalaha jirooyinkeena ka mid tahay macnaha kibirka macnihiisu waxa waa qabweyne waa qofka qabka weyn koow horta waxyaalaha mala toosin karo labo maxaa la yiraahdayo dadka lama dhaqmi karo awaamirta iyo waxyaalaha barkooda ma qaadanayo kibirka saddex waxa way asakaliya isla toosan oo qof kale ma warkiis ma yeelayo marka qabweynidaas waa waxyaalaha dadka ama bani aadamka dib dhac u sameeyay kamid tahay sababtoo ah waxa waaye sheegan inuu xun yahay waxa daliil waa shay horta ilaah uu leeyahay shayga ilaah uu leeyahay dad faraha la gashan mushkiladeeda waa ilaah wuxuu yiri walahu al-kibriya fi samawati wal ard al-mutakabbir wa sifatka Allah kamid tahay وكذلك الكبرياء ردائي وحواي وحديث القدس أنا قو إيه ده إلهي سبحانه وتعالى مركز أساس أود كبر كنوع أساس كالبني آدم كمركا صفة ومعهن والشيء حنوي وحاكا لو لقى فائدة قصة قف كستو كبرايو عقدا كجرتا عقدا وحيكو كيني زمركا إنو كبرا عقدا وحواي مثلا وحي يسوء أركا إنو داد كانوا دان كليت وحي يسوء أركا إنو ما أركتا مركا وحو اسكو دايا مركا داد كان سيدو كو غاري لا مركا سقورتو و ديريستو يو ربا وهبل وكا ديري هاي سيدكو غاريسا مركا waa inaad isjibiso si qaab daran inaad u socoto waxyaalo noocaas oo kale qisada way ku jirtaa marka waa cudur xun oo shaydaanka meel xun dhigay nicmada ka saaray sidaan arki doogno waaye oo asaga nicmadii ka bixiyay arinkan isaga takhallufka asaga ku keenay sida xalaqaadka kale aan kaga hadlay doogno waaye qodobka kale oo kaga faa'iideysanayna waxa way qisadan oo hadda aan joogno waxaan kaga faa'iideysanaynaa waxa lagu magacaabo ninkan kibri oo shaydaanka ibliis falsafada uu ku dhisay maxay tahay kibirkiisa falsafada uu ku dhisay maxay tahay iyo sujuud la'aanta maxay tahay wuxuu ku dhisay arin oo asaga ay la noqotay sababtoo waxa dhici karta marka barkeeda dadka kibirlooyaalka ama dadka noocaas oo kale aragti waxay tabaninayeen oo sameynayeen oo hadii la fiiriyo qiyaasyaha oo cilmi ahaan ama tajaarubta aanan waafaqaynin مثلا tusaale ahaan wuxuu yiri ninkan ana qasas kalma inoo iman doona laakiin maadaama qasiisan ku jirno takabburka aan sharxayno wuxuu yiri ana ereygaas waxa waa anaaniyo aniga waxaan ugu fiican yihiin aniga la waxaan noqon karaa aniga la dhaqaalahan qaadan karaa aniga la siyaasadan ku fiican aniga la maxay ahayd oo kan aniga qofka inuu yiraahdo marka aniga hadii la yiraahdo qofka waxa way anaaniya la yiraahdaa oo qofka anaaniyadaas dadka noocaas oo kale waa amal shaydaan ay hayaan ibliis waxa lagu yaqaan qodobkaas uu ku bineeyay ana wax jira ma nabigeena waa diiday anada waa diiday nabiga sallallahu alayhi wasallam qodobka kale oo uu ku bineeyay waxa kamid miqyaas iyo ama micyaar qaldan yani halbeega uu isticmaalay yaa wuxuu ahaa halbeeg qaldan oo falsafada halbeeg uu sameeysanay uu ku dhaxsamay waxay ahayd halbeeg qaldan oo waxyaalaha uu ku bineynay fiir wuxuu yiri khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min tiin uu yiri asaga waxay la noqotay dabka iyo dhoobada in dabka qiimo badan yahay fadli badan yahay oo dhoobada ay liidato saas awgeed asaga naari uu yahay shay naari laga abuuray saas awgeed marka uu arko inuu yahay qof fiican
laakiin waa ka qaldan tahay, micyaarku waa qaldan yahay. debka asal ma ahan, debka farac waa asal. waxaa dhoobada asal lee limaada debka asal ahaan sida qur-aanka noogu qoran wuxuu ka yimaadaa geedahu ka yimaadaa. oo ilah wuxuu yidhi afara'aytum an-naara allatii tuuruun a antum ansha'tum shajarataha am naxnu lmunshi'uun. debka marka asal ahaan geeduhu ka yimaadaa. geedka intuu ka yimaadaa marka? geedkana dhulkuu ka baxa. idan dhulka aasaas ah marka, debka laftiisa dhulka aasaas u ah. debka marka faracuu noqonaa. farac iyo asal yaa fadli badan marka? asalkaa fadli badan. marka saas awgeeda waxa uu ku binay waxay ahayd shay qaldan. marka dadka inta badan oo مثلا waxyaalaha adduunyadan laga isticmaalo hebelaa ka fadli badan iyo oo maaragtay fadliga waxaan sheega oo yani xagga bulshanimadka مثلا tusaale ahaan مثلا in la yaso dadka barkooda, qabaa'ilka barkooda in la yaso, sida caalamku waa ka jira meelo badan sida Soomaaliya oo kale مثلا oo la yiraahdo nasab ma ahan, aniga nasab ee مثلا qodobka noocaas oo kale nasabnimada marka micyaarka uu u dejiyay marka taariikhan la fiiriyo waa micyaar qaldan oo sheekooyinka la sheegayo oo qofkan lagu yasay sheekooyin jira ma ahan. saas awgeed marka qodobka noocaas oo kale oo dadkan saas oo kale isticmaalayo waxaa dhici kartaa in maxaa la yiraahdayo micyaarkay sameeyo micyaar qaldan uu yahay, waana micyaar qaldan ba dhici kartaa ma waa micyaar qaldan sidiisaba. ولهذا القرآن كان وحو شيء لا يسخر قوم من قوم حتى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. أنا قفكم عيارك ودقي لكن أرنت سكال إني أتعالى دعكرتها وإلهي سكال ودقي سبحانه وتعالى. مركا ماشي أصلا مركا قد يدن لي هذا القبلية أما الله استعمالها وحيالها النوع عصو كلا هبل مقوسن كلا هبلايو هبل كان هبلايو نينكا مقورسن كرت هبل كان كفي عن ويعني قبائل كاسكو يسان انا كقاد وين نينكا مقاد وين انيغا تول وين انيغا كذا نينكا waxaway kada waxyaalaha noocaas oo kale markaad fiiriso waxaway waa shay oo uu isticmaalay mar hore oo ku soo qaldamay ibliis waa waxyaalaha ku kalifay in maxay ahayd nicmada ilaahay uu ka soo baxo. waay marka qodobkaas waxaan rajeynaa in aad ay u akhriyaan maxaa la yiraahdaa dadka wax akhrin karo oo ay aad u fahmaan. qofkii wax akhrin karin dhageysan inuu ku tadabburo in macaayirta lagu dhisay arrimaha noocaas oo kale ama halbeeg loo dejiyay inuu ahaa halbeeg aad u qaldan inuu ahaa. marka taas iyadana waxa waaye waa waxyaalaha aan ka faa'iideysan karno qisada xalaqadana oo 6aad halkaas hay inoo joogto.